Dagaalkii saddexaad ee adduunka ayaa bilowday 2 bilood ka hor. Waxaa soo baxay Hitlerkii labaad oo hogaaminaya dagaalka, lana magac baxay COVID-19. Dadweynaha caalamka ayaa kurbaysan, dowlad kastana waxay baadi koobaysaa hubkii la iskaga dhicin lahaa Hitlerka labaad ee COVID-19. Waxaad maqli jirtay in Hitler uu Yurub ku koobnaa, laakiinse COVID-19 ayaa qaaradaha caalamka isku maray. Adduunka ayaa maalin cusub la kowsaday. COVID-19 wuxuu ku jiraa dawaafkiisa. Haddii aad maqli jirtay bandow, haatan adduunyada oo dhan ayaa bandow la saaray. Dagaalkan ayaa socda 2 bilood wax ka yar, waxaana ku nafayay malaayiin dadweyne ah. Suuqyadii caalamka ayaa xaniban, dadweynihii caalamkuna waa afduuban yihiin. Taabashada iyo isku dhawaanshuhu waa hubka COVID-19 uu adeegsado. Isku socodka dadweynaha ayaa yaraaday, aadaanka salaaduna waa isbedelay. Muslimiinta ayaa xaafadahooda waajibka salaada ku gudanaya. Dadweynaha caalamka ayaa rajo dhigay, laakiinse dowladaha caalamka ayaa dadaalaya. Xaaladda adduunka ayaa sii cakirmaysa, dagaalkuna waa sii qadhaadhanaya, dhimashaduna waa mid kordhaysa. Dadka dhaawacmay daawadoodu waa karantiil muddo 14 beri ah. Hitlerka labaad ayaa dagaalka keli ku ah, halka caalamka oo dhan uu dagaalka ku jiro. Jawaabtu waa digniin, lama saadaalin karo dagaalku meesha uu ku dambaynayo. Dagaalka ayaa ka bilowday dhulweynaha Shiinaha, intaasay Shiinuhu loolan adag ku jiraan. Haddana COVID-19 hawshiisu ma yara. Heshiis iyo wada xaajood ma aqbalayo. Haddaad maqli jirtay dawaafidii Magellan, maantana waxaad maqlaysaa dalxiisidii COVID-19. Isku diyaari dagaalka, kana digtoonow.